Real Madrid ayaa jawaab aan filanaynin kala kulantay Eden Hazard waxaa loo sheegay in 340,000 la siin doono toddobaadkii balse waa uu diiday lacagtaas oo soo bandhigtay kooxda ka dhisan garoonka Santiago Bernabeu. Real Madrid waxay doonaysaa inay hesho bedelka Cristiano Ronaldo kaas oo laga yaabo in markan daad ay ka daba timid Madridna ay u baahan tahay ciyaaryahan sax ah oo booskaas buuxin kara. Majalada Marca waxay warinaysaa in 27 sano jirka hadda ku sugan garoonka Stamford Bridge ee Hazard uu sidaan doonayo. Marca waxay soo warinaysaa in 27 sano jirka hadda ku sugan garoonka Stamford Bridge Eden Hazard laga soo dalbaday garoonka Santiago Bernabeu balse Hazard ayaa muujiyay tayadiisa iyo waliba inuu u qalmo lacag ka badan lacagta ay soo bandhigtay Los Blancos-ka. Marca waxay aaminsan tahay in xidigan Belgium-ka marka koowaad ay Madrid ku soo qaadan karto 105.5 milyan laakiinse waxaa la isku qabsaday lacagta shakhsiga xidigan la siinayo toddobaadle sanadle ee uu kooxda ku joogi doono. Hazard ayaa aaminsan Madrid inay ka mid tahay kooxaha ugu guulaha badan adduunka sidaa darteeda wuxuu ka fiirsanayaa danihiisa gaarka ah marka koowaad inuu helo mushaar fiican kadibna uu helo taageerayaal kooxdaasi jooga kuwooda ugu fiican. Waxaa laga yaabaa haddii uu Madrid tago inuu ku soo biiro liiska xidigaha Ballon d'Or lagu arki karo.